قالت قيل أنت ما تناقوا وعي مركو دمناي دقيقة دي نفتك سي بحيسي وحو يري إرمو ولا لها جيران ويلي قبر سومالي جوغان marka adna saaxiiba aheedeen looyarkiisina waa aheed bal arintaas walaalo macaan maxaa ku ogtahay aabo la dardaarmay waxaan ugu yiri Allah u naxariistee marka ilmahaasi ay soo baxaan ayaa dhaxalkooda iyo waxyaabaha aan kula dardaarmay aad soo bandhigi kartaa saasa ku dhaha muxmo marka waxaan rabaa xataa at least bal ii sheeg ilmaha magacyadoodii ilaa naaba daqiiqadii uu dhimanayay isagoo magacyada ii sheegin uu dhintay marka inaan waxaan rabaa walaalo ka ogaado xataa magacyada ilmaha arintan waxaa la soo bandhigaa intaad ka helaysid wiilkaas iyo gabadhaas inta ka horeyso wayrow ma waxaadan ku faraxsanay inaan walaalahay helo waxaan ku yiri magacyadooda iga caawi kaliya maxaad u fiirinaysaa ma ii jawaabtid aniga axdiyan galay axdigana inaan adkeeyo waan ku qasbanahay waa mas'uuliyadeeda marka ilmihiina hadda maba lahaayaba geelow haddaadan ani ii sheegin ilmihii magacyadoodii iyo meeshii ay ku nool yihiin iyo xaaladdu sida ay tahay seen ku helaa marka walaalahay aan ii sheeg markaan isbaranay waxaan kaaga sheekeeyey inaan ahay badmaax haa waa runtaa markabkii ingiriiska imanayay oo degay oo aad kaligaa ka badbaaday alla dilaa dhinta alxamdulilah ilaah baa iga badbaadiyey runtii calafka waa cajiib horta intaan joogay barbara gabadha isbaranay aan guursaday mudane haya gabadha aad guursatay magaceed xageesa ku dambaysay canab waxaan ka soo tegey iyadoo uur leh 2 bilood baaslaawe xaaskaagii hore sitay waxaad uga soo tagtay muqdisho iyadoo uur 3 bilood ku leh xaaskaagii labaad berbere ku guursatayna canab waxaad uga soo tagtay iyadoo 2 bilood uur leh marka xageebaad tagtay anakoo berbere ka soo baxnay waxaan aadnay Dubai alaab kala soo qaadnay markaan London u socono xaaji waan dareemi karaa markaas miyaa markuu ku degay okay geelow marka waxaan ka rabaa ii sheegday magacyadooda marka wiilka walaalkaaga waxa la yiraahdaa wiilka magaciisa qor cabdi abuukar cusmaan baaslaawe gabartan magaceeda qor caasha abuukar cusmaan baaslaawe waxaan ku weydiinayaa aabahay magacaas uu la baxay ma qof weyn magac u baxsaday mase markeeda ilaa ilmaha uu joogay waxaan rabaa qaladaadkii aan galay inaan saxo okay qoraalka bilow waxaa dhici karto labada caruur oo kale inay ku nool yihiin nolol aad u liidato waxay xaq u leeyihiin dhaxalkayga iyo xoolahayga inay qayb ka qaataan waa runtaa laakiin caruur magacyadoodii iyo meesha ay ku nool yihiin aan la ka sayn saa dhaxal ugu qornaa lacalla inay iyaga soo raadiyaan soo ma dhici karto sidee ku soo raadinayaan ma dhici karto in hooyooyinkoodii magacayga u sheegaan waa macquul laakiin dhaxalka marka la qoraayo waa in caruurta magacyadooda oo saxa lagu qoro dokumentiga dhib ma jiro haddaan magac u bixinaa mudane ma dad 40 jira ayaad hadda magac u bixinaysaa feeri waxaan qor ku dhaho qor okay mudane waa qorayaa marka sidaas daraadeed isaga ayaa ula baxay adduun wax walba ka filo waxaan ku weydiiyey labadii xaas oo uurka ku lahaa oo kala joogay muqdisho iyo berbera ma raadisay waan raadiyey 2 sano kadib markaan isbitaalka ka soo baxay waxaa lee sheegay sitay inay sacuudiga aaday oo meeshaas lagu dilay allaha u naxariisto uurka ay lahaydna waxaa lee sheegay inay wiil dhashay muqdisho ugu tagtay ma raadis
ها وارادي حتى هلا عقام كبحيي سانو هرو لكن نسيب درو والله إلا الآن hadda wiilka sidaas miyaa ku weyse ساسان كويسنا xaaskii labaad oo berbera kuu deganaa canab oo uurka ku lahayd xaggee ku dambaysay waxaa lay sheegay in berber ay ka dhooftay iyada iyo gabadheeda sababtoo ah wuxuu og yahay caruurtiisa aysan marnaba aysan weyn karin waayo wuxuu igaga tegay wax dhaxal ah oo lagu heli karo aabbaha waxaan ka hayaa DNA magacyada muhiim ma aha DNA-ga kala saaraya dheecaanka haddaaba DNA hayso aabbahay anigana waxaan u baahan inaan walaalahay helo marka igu caawi taas baxsan waddankan waxaa ka jira sharci waxaa la marayaa process waa in mataqaanaa marka ugu horeysa dadkii si xafiiska lagu keeno dadkii aan baarno DNA-ga laga qaado oo markaas kabacdi aan dhakhtarkii haayay aan u gudbiyo gele ma DNA-ga aabbahay ii diidaysaa maxaa noogu taalayer ii sheeg maxaa noogu taalayer oo lacagta lagu siiya ma sheegi kartaa walaal la'aanta dhibka ay leedahay anaa og adi ilama ogid xanuunka i haaya anaa og baxsan isdeji sharciga lagama gudbi karo waddankan sharci buu leeyahay fariiso isdeji bal horta at least isbitaalka oo yaalla ii sheeg anaa u tagaayey horta bal fariiso